السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا waa maalin weyne maanta oo ay bishu tahay 11 May sanadka 2021 waxa guud ahaan geega Soomaaliland looga dareeray laba doorasho oo isku sidkan maanta waa maalin weyne maanta madaxeen banaani maanta waa doorashada xildhibaanada golaha wakiilada iyo xildhibaanada golayaasha deegaanka dalka oo dhan ee muddada 5 sanadood ee soo socota waa maalin taariikhi ah waa laba maalmood oo isku sidkan oo xasuustoodana mudan waa 11 May sanadkii 1988 oo ahayd habeenkii xaqudirirkii mujaahidiintii SNM ay gudaha u soo galeen caasimadda Hargeysa iyagoo oo mowqifkooda ahaa inay qori caaradii xukunka kaga tuuraan taliskii dhiigii cabka ah isla markaana ay badbaadiyaan shacbigoogii la xasuuqayay codbixintii inoo bilaabatay dhammaanna dalka goobahii codbixinta loogu talagalay ay si nabadgelyo ah uga bilaabmeen una wada furmeen ilaahay mahadi weeye haddaba 33 sannadood kadib maalinteedii oo ah 11 May sanadkan 2021 waxay shacbigu markii toddobaad u dareereen doorashooyin xor ah in fartooda ay ku bedelaan madaxdooda oo markii u horeysana ay Soomaaliland ka hirgasho laba doorasho oo isku sidkan oo hal mar la wada qabto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi ayaa isagoo aroortii horeba ka codeeyay xarunta guriga shaqaalaha ee magaalada Hargeysa nabad ku codeeya waa laba doorasho muhiim ah aad bay adduunka loo soo eegaysaa saaka hadda daawateen waxa leeyahay idaacadaha waaweyn adduunka oo dhan waxay ku soo jeedaan Soomaaliland xilba ina saaran nabadgelyo iyo nidaam iyo wanaag ku codeeya dhalinyarada waxaan leeyahay sidii aad u horeysay wanaagsanay oo codeeya waqtigu uu nagu filan yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Ciro ayaa isaguna isla goobtaasi guriga shaqaalaha ka codeeyay waxaan ku jiray imtixaankii waan ku guuleysanay markii ugu horeysay in laba doorasho isku mar qabanno golihii wakiilada iyo golayaashii deegaanka arintaasi guud ahaan Soomaaliland guul bay sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna isla goobtaasi guriga shaqaalaha ka codeeyay waxaan maanta soo afjarnaa insha Allah ta'ala baarlamaankii loo bixiyay the oldest and incompetent parliament in the world baarlamaankii ugu tayara ee ugu dalweynaa adduunka ayaynu maanta soo afjarnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin oo dalka ku noqday dhibaato ku noqotay kuwa soo afjarnaa insha Allah ilaahay khayr badan ugu bedeli doonaa waxaynu ugu bedelinaa local council khayr qaba oo qayileen oo calool yeelanayn ee ummadda u shaqeeyaan insha Allah ta'ala oo daarinta dhistaan xaraana aan ku qoreen ma sha Allah saadaasha iyo rajada tii markii hore aan qabnay tuka badan baan hadda qabaa waxaan isleeyahay qofka maroodijo ugu codka badan inaan noqonayo insha Allah biidnillaahi taala sida ay ku soo xog bixinayaan dhammaan gobollada dalku hadday bari tahay iyo hadday galbeed tahay xaalad nabadgelyo ayay saaka ku bilaabantay doorashadii dhammaan goobaha codbixinta siday u dhan yihiin way furan yihiin xilligoodii baa la furay si fiican bay maxaanku dhahday ayay u shaqaynayaan siday turxaanka u dhameen dhigod iyo qayrkoodu dhaafeen
saaka shantii subaxnimo nimi welina waan taaganahay xildhibaan kan codkayga la doonayna waa siiyey dabadii wanaagay dhaqawday siday turxaanka u dhameen dhigood iyo qayrkoodu dhaafeen dareenkaygu aad buu fiican yahay maanta aan arkayo in si fiican dadku u codaynayaan dadkii baad moodaabay inay bilis yihiin doorashada si fiican bay noogu socotaa wadhalaartii la taage qadhibay calankeeni ballankeenu nabad ku sahday saaka bishu waxa weeyaan 31 bishii shanaad 2021 waxaanu kormeer ku maraynaa goobihii laga codbixinayay ilaa hadda waxay u socdaan si habsami leh oo nabadgelyo ah ayay u socdaan dadkuna waxay u codaynayaan si aragtaan iminka qabanaysaan ayagoo ku jira kuyo dhaadheera weliba ay sanaaduuqdii la badiyey oo dhakiisa hayaha wadaniga dhabta loo dhowr hambaliyo shacbiga Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan gobolka saaxil sida fiican habsamida doorashadu socoto guul baan rajeynayay ilaa hadda si fiican bay socotaa dhulkan soo marnay dadkuyada ku jiraan halkan kulaylka iyo duruufaha oo mustaqbalka u baahan in wax laga bedelo ayaa carqaladaha jira laakiin sida kale si dimuqraadiyada oo fiican oo wanaagsan ayaa ilaa hadda u socota doorasho hal qof iyo hal coda waxaan dooranayaa qofkaan anigu ii sharaxan ama qofka aan ka arkay inuu qofkan yahay qofkaan anigu dooranayay ee aan ka arkay inuu gobolka horumar u soo kordhin karo golaha deegaanka iyo baarlamaanka anagu waxaanu nimi halkan saaka salaad 6 subaxnimo kayugu dheer yahay aad bay u socotaa si fiican bay u habsamayaa bay u socotaa doorashadu annaguna dareenka iyaga aad buu wanaagsan yahay insha Allah cidaan u codaynayna sigriti baanu insha Allah tacaala ku codayn doona Somaliland dhaxalkiya way ilaashay oo aabbatariyay dhageysteen dhaqmiye bay iska dhowreen golaha deegaanka iyo kan wakiilada labadaba waa ka soo codeeyay ilaa iyo 69 waa codeynay wadaraartii la taage la dhibay calankeeni balankeenu nabad ku seeday anigu cod bixin baan ku jiraa codkaygaan bixinayaa maxay ahayd dadka kalena waan keenayaa codka bixinaya dadka kale anoo ku shaqaynaya anoo u shaqaynaya muwaadinimo ku shaqaynaya keenu nabad ku seeday وما دافها وانا قدسها magacaygu waxa weeyaan Xuseen Mandela ninka baraha bulshada aan ugu caanan hay shantii subaxnimo saaka ayaan soo galahay waxaan u odeynayaa codkayga ugu ridayaa Barkhad iyo Cabdikariin waxaan ka rajo weynahay inaan rajo wanaagsan oo dalkan iyo dadkan midaynaya ama qabyaalada inaga tuuraya ayaa rajo weyn ka qaba kuwii hore waxa ka mid ahaa maayirkii Sooteelko ku-xigeenkiisii oo gawaadhi cadcad nagu soo dhaafi jiray mar walba ayaan darre iyo nasiib darre ay nagu tahay shakhsi ahaanteeda Xuseen Mandela ahaan marka wallaahi Barkhad iyo Cabdikariin ila ma aha inay baawar cadcad nagu dhaafayaan inay soo dhaweeyaan bayna la ayaalo cirka soo helaa nuuray wa calaamadku khayr leh وعوغا شكاراكتي محمد الله حسن waxaan halkan inaan saaka codeeyo doorashada deegaanka iyo baarlamaanka labada kaadh ku rido caawatiri waykan awada ayaalo waa cirkas oo ku faraxsanay doorashada maanta socota anagoo shucuubteeda ku muujin walaa shucuubteeda lama koobi karo dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigoo walaashay sharaxan tahay oo ku faraxsan inay soo baxdo jecel aad iyo aad u jecel calamkii ku qiri waayay waa cadceedu qari waayay shalay toole subaxii baan soo galay biligubadle waxaan u soo degdegayey u soo ordayeen xoolahaygii iyo dadkaygii uga yimid waxay ahayd inaan xildhibaan u soo saaro daacadno ah dareenkaygana wallaahi aad iyo aad runtii waxaan dareemayaa
farxaddaan dareemaya halkan waa degmada Beligubadle waana degmo doorasho waxa ay ka kooban tahay 46 goobood oo lagu cod bixinayo waxa ay bilaabmeen saaka saacadu markay ahayd 7 subaxnimo si fiican oo nabadgelyo ah ilaa hadda way u socotaa halkan waxaan imid anigu 6 bura markaan salaada subax ka soo baxay gurigeyga waan ka soo baxay lada mas'uuliyade calayahu cisiya moono kaga lula cirko muuqo waameye cawa waameye waxa soo istaagay ilaa 8 barkii waxaad doonaysaa inaad codayso ma codayntii ugu horreysay aad ka qayb qaadataba ma ii codayn kaloo badan waan ka soo qayb galay maasha Allah tabaaraka waan ku faraxsanahay inaan codayno kaloo badan ka qayb galo taaginta inaad codayso aad ugu jirtaa safafka dhaadheer maxaad isleedahay doorashadu way kaga duwan tahay kolley isbedel doon baanu annagu isbedel baanu doonaynaa kuwii horena waqtigooda wuu dhammaaday kuwa cusubna waa la dooranayaa waxaanu doonaynaa dee sidii kuwii horena inay ka shaxshax badiyaan ayaa annagu dooranaynaa kolleyda magacaygu waa maxamed cabdi doorashadan waxa weeye doorashadii toddobaad aynu codeyno welibana waana tii ugu horreysay isku sidkan aynu codeyno marka ilaahay insha Allah si khayr oo si amni leh aynu dambeeyo waana doorasho fiican waxaan doonaynaa insha Allah inuu gole deegaano fiican oo caasimadda Hargeysa ay u burbursan tahay idinka arka garanaysa marka gole deegaano si fiican uga shaqeeya oo maxaa ku raadaya caasimadda inuu hagaajiyo qurxiyo wadooyin ka u qalmato wadooyinka caasimaddu ay leedahay waddo caasimadeed u qalmata aynu doonaynaa inaynu soo Abdullahi Maxamed Yuusuf dareenkaygu aad u weyn maanta wadaadkiisa calankiiba ka soo labistay insha Allah ilaa kaga dhaqanka maanta walaal waa 31 May waa maalintii walaal waxay ku beegantay maalintii Hargeysa ay soo gashay ciidamadii ugaasnaa sanam dadana qofku doonayay buu calaamadiisa ku codeynaya ama nambarkiisa ku codeynaya marka qofkii aan kaarsiinay inta badan dama codeynay halkii lagu celcelin jiray doorashooyinkii hore qofku uu dhowr meelood ku codeyn jiray doorashadana qofku markuu codeeyo kalinkaas oo ka baxaya uu soconaya marka waxaan u maleynayaa inay dee horu socod fiican ay tahay dadku inay meel fiican gaareen inay tan ku turjumayso wacuudka shida nawdal iyo carro darwiisheede inaan cod bixiyaan usoo diyaar garoobay aan codeeyo marka aad baan ugu faraxsanahay inaan noqdo muwaadin bixinay codkiisa oo usoo kala soo jarmaaday si aan codkayga u bixiyo maadaama codkayga u khasaarin waxaan usoo kala sabdheer ilmo yar naqana waan ka imday marka xagga dhammaan haysan ilmo yar baan sidii buuqa u diido anoo xanada kuyuga qabsadaysa waxa xarunta hay'adda shaqaalaha ka soo qayb galay isla markaana goobjoog ahaa mas'uuliyiin fara badan oo ka qayb qaadanayay codeynta mas'uuliyiintaasi ku sugnaa goobtaasi ayaa waxaa ka mid ahaa goobjoogayaal caalami ah ajaanib safiiro iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan haddaba safiiradii halkaasi ka soo qayb galaya waxaa ka mid ahaa safiirka ama wakiilka dalka Taiwan u fadhiya Soomaaliland oo soo indheynayay qaabka ay doorashadu u socoto safiirka oo Bulsha TV kula kulmay afaafka hore hay'adda shaqaalaha ayaa markii uu ka soo baxay xaruntaasi codbixintu ay ka socoto waxaan wax ka weydiinay balka Taiwan ahaan sida ay u arkaan maadaama doorashadii ugu horeysay ee nooceedu yahay sidan ama doorashadii ugu horeysay ee isku sidkan ee Soomaaliland lagu qabto Taiwan ahaan sida ay u arkaan waxaan yiri Well, it is very impressive to witness the important election. aad ayaan ugu faraxsanahay inaan markhaati ka noqdo sida fiican ay u socoto doorashada Soomaaliland waxa ay ka gaadhay guul la taaban karo arrimaha doorashooyinka waxay samaysay arrin loo baahan yahay in dunida caalamku ay isku garab taagaan sidaas darteed Taiwan Soomaaliland mar walba way garab taagan tahay waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliland oo aan ku hambalyaynayo guushaas ballaaran ee ay gaadheen barnaamijkan waxaa idiin soo diyaariyey Guuled Cabdisheekh Khaash oo idin leh allihii nasiiyo nabadda noo sii siyaadi nabadda كرقادة